dimuqraadiga Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi, ra'iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka arrimaha gudaha iyo ra'iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geedi, safiirka Djibouti Cismaan Dumed, wasiirada labada gole ee baarlamaanka, dhammaan howlwadeennada haweenka Soomaaliyeed ee aniga qaaliga igu ah dhinacooda leexajiyay, iyo saraakiisheena aan caawa nabadda ay noo sameeyeen aan ku fadhino oo aan aad iyo aad aan u ammaano oo aan idinka mahad celinayo. dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga intii hore oo la yiri ayaan la qabaa, daqiiqado ayaa harsan. waxaa sharaf weyn ii ah 26 Juun inaan ka qayb noqdo la dabaaldega aan la dabaaldegayo. waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo khudbad badan anigoo kuma lihi gudoomiyaha aqalka sare ee qaaliga nagu ah, khibradda badan leh, gudoomiye Cabdi Xaashi oo ku soo dhaweyn doona madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed.